بسم الله الرحمن الرحيم قدوميها أوركا وينك قرق الصوماليات مروة بطولة شيخ أحمد قبله مسؤولين تا أما بقى قسمية شك السعودة ووزارتها وينك يهرمرين حقوق ذاتنها مسؤولين تا كالسعودة ركتا قناعسك الصوماليات مسؤولين السعودة بالشدة الرئيدك لأن يرد قيبه هذا كلا دوان يصيدوا كلا مرتي شرف كالسعودة كوميسا يصيدوا كلا هيادها قناعسي maanta bandhigan halkan ku sameynaya oo kala ah Sostec Manhaye Hormuud Telecom Somalia Somfresh Idman iyo waliba media isagana kaalinta ka qaadanaya Manmiye media iyo sidoo kale qaybaha kala duwan oo aan markaasi aan ka tagay inaan halkan ku xuso guud ahaan waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh salaantaas kadib wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha waxa farxad iyo sharaf u ah inay idin kala soo qayb gasho bandhiga ganacsiga haweenka oo markaas ay si wada jir ah u soo qaban qaabiyeen hay'adaha iyo waliba ururada halkan ku xusan si gaar ah hay'adda markaas magaceeda la yiraahdo Somali Women in Business waan bogaadinaynaa waan dhiirigelinaynaa dhaqdhaqaaqyada kala duwan oo ay haweenka marka xilligan ku howlan yihiin wasaaraddu waxa ay maanka ku haysaa in haweenka horumar ballaaran ay ka gaareen dhanka ganacsiga iyadoo xilliyadii hore ay ku koobnaayeen oo kaliya inay khudaarta iibiyaan iyo waliba ganacsiyo yaryar oo xaafadaha dhexdooda ah hase ahaatee maanta waxa guul ah isla markaasna wasaaradda ay idinku dhiirigelinaysaa in haweenka Soomaaliyeed ay ku talaabsadeen samaysashada iskood ah hay'adaha kala duwan haddii ay ahaan lahayd dhinaca tiknoolajiyada haddii ay ahaan lahayd dhinaca warshadaha ay markaasi dalka ku soo kordhiyeen xanaanooyinka qaybahooda kala duwan oo aan ka warqabno in Muqdisho ay ka taabageliyeen si gaar ah haweenka dibadaha haweenka diaspora oo iyagu laftirkooda kaalin muuqata ka qaatay ganacsiga dalka iyadoo dhinaca kalena ay ka dhicin haweenka qorrax jooga aan iyagu markaasi wadanka ka bixin in iyaga laftirkooda ay xilligani ay ka ciyaarayaan ganacsiga Soomaaliyeed meel markaasi heer sare ah dhanka dhoofinta khudaarta qaybahooda kala duwan iyo waliba lowski iyo waxyaabihi halkan lagu soo bandhigay oo iyaga laftirkooda haweenka markaasi wadanka ku haray oo iyagu markaasi ka safrin iyaguna ay mudan yihiin in la xuso kaalintooda wax ku oolka ah ee ay dalka ku soo kordhiyeen wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha waxay dhankeeda wada shuruucdii markaas haweenka lagu taabagelinayo xuquuqdooda iyo waliba shuruuc markaas iyagu markaas dhowraysa xuquuqdooda gaarka ah dhinaca kalena kama marna in wasaaraddu ay xilligani ay qorsheynayso in ay iyadana dhankeeda ku soo kordhiso haweenka Soomaaliyeed sidii ganacsiga amaba dhaqaale ahaan kor loogu qaadi lahaa saad ka warqabtaan amaba qaarkiina ay ka warqabaan waxa ay wasaaraddu dejisay istaraatiijiyada kor u qaadista dhaqaalaha haweenka oo afka qalaad lagu dhaho women economic strategy oo Soomaaliya ay leedahay anaga dhankeena markaad fiiriso ka dawlad ahaan waa shuruuc iyo siyaasado markaas lagu xoojinayo haweenka in aan diyaarino isla markaasna aan taabagelino iyadoo markaas idinku lafdhabar aad u tihiin la tashiyada kala duwan ay wasaaraddu sameynayso ka dawlad ahaan wasaaraduna ay xoog saarayso sidii shuruucdaasi ay u dhaqan gelin lahayd dawladda isla markaana idin fududeynayso haddii ay ahaan lahayd ganacsiga dhoofinta iyo markaasi soo dejinta iyo lahaanshaha ganacsiyada waaweyn in ay haweenku kaalin weyn ka yeeshaan xuquuq buuxdana ay u yeeshaan wasaaraddu ay ka shaqeynayso iyadoo kaashanaysa wacyigelinta iyo waliba dadaalada ay haweenka iskooda ay u wadaan warkayga ma sii badinaayo dad badan ay iga dambeeyo waxaan jeclaan lahaa inaan mar kale idinku bogaadino dadaalka weyn aad wadaan isla markaana waxaan idin leenahay si laba jibaara wasaaraduna garabkiina ay taagan tahay mar walba iyo goor walba sidaas daraadeedna waxaan ku soo gabagabaynayaa kalimadeedii assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh